Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ku soo dhowaada kanaalkeena Warsada Media. Dagaal u dhexeeya ciidamo uu hogaaminayo Wasiir Janan iyo dowladda dhexe ayaa xalay ku dhaxmaray magaalada Balad Xaawo. Waxa uuna salka ku hayaa khilaaf ballaaran oo ka dhexeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland, kaasoo muddo badan soo jiitamay. Waxa uuna soo maray heerar kala duwan. Bilowgii dib u doorashadii Axmed Madoobe ayaa madaxweyne Farmaajo qaadacay natiijadii ka soo baxday doorashadii uu ku guuleystay, wuxuuna saaray cunaqabatayn hawada ah oo uu ku go'doominayo gabi ahaanba maamulka Jubbaland iyo caleemasaarka Axmed Madoobe. Waxaana sii ballaartay dagaalkii u dhexeeyay labada dhinac oo sababay in lagu xiro magaalada Muqdisho wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland kadib markii uu ka soo baxsaday xabsiga muddo yar dabadeed. Farmaajo ayaa ciidamo fara badan geeyay gobolka Gedo oo ka tirsan Jubbaland, wuxuuna u magacaabay maamul hoostaga dowladda dhexe, halka meeshaba laga saaray maamulkii Jubbaland ee ka talinayay gobolkaasi. Waxaa dagaal soo noqnoqda oo aan midna ku guuleysan ku dhaxmaray ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland. Kenya ayaa kaga faa'iideysanaysa dagaalkan ka socdo gudaha Soomaaliya, iyadoo ka damacsan inay cadaadis uga dhigto dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu kala dhaxeeyo murankii badda iyo mamnuucistii qaadka oo uu ka soo geli jiray dakhli fara badan. Waxaanay u muujinaysaa dowladda Jubbaland inay garab istaagayso, iyagoo midba midka kale uu danihiisa gaarka ah ku fushanayo. Waxaa xalay abaarihii 9kii fiidnimo dagaal adag ku dhex maray magaalada Balad Xaawo ciidamo uu hogaaminayo wasiirka amniga ee Jubbaland, waxaana halkaasi ku geeriyooday dad shacab ah oo ay haleeshay madaafiic culus oo la isu adeegsaday. Waxaa kaloo aan wardhageed ku helaynaa inuu halkaasi ku geeriyooday taliye xigeenkii saldhigga Balad Xaawo. Ciidankii uu hogaaminayay Wasiir Janan ayaana la sheegayaa inay qabsadeen qayb ka mid ah magaalada, walow aanay ku waabariisanin. Madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa mar sii horeysay soo saaray warqad uu si kumeel gaar ah ugu aqoonsanayo doorashada Axmed Madoobe. Ha yeeshee waxaanan weli meesha ka bixin khilaafkii u dhexeeyay, waxaana ciidamo labada dhinac ka socda ay isku hor fadhiyaan magaalada Balad Xaawo, mana muuqato wax isu tanaasul ah ama qorshe siyaasadeed oo lagu badbaadinayo dhiigga shacabka duruufaha adag ku nool ee gobolka Gedo.